barnaamijkeena gungaar oo aan ku dul istaagi doono ayaa mar qura waxaan ka war helnay xabada nagu bilowday. allaha u naxariistay cabdicasiis maxamuud guuleed afrika waxa uu warbaahinta ku soo biiray waqti hore waxaana uu ka mid ahaa wariyaashii rugcadayaasha ahaa ee ku noolaa magaalada muqdisho kana soo shaqeeyay xilliyo aad u adag. waxa uu muddo ka shaqeynayay cabdicasiis warbaahinta madaxa bannaan isaga oo markii dambe ka mid noqday wariyaasha radio muqdisho waliba xilli ay aad u adkeyd in lagu dhiirado la shaqeynta dawladda. waxa uu inta uu joogay ka qayb qaatay dhiirigelinta ciidamada kala duwan ee dawladda iyo soo bandhigida siraha qarsoon ee kooxda al-shabaab. haddaba kaalin intee leeg ayuu ku lahaa allaha u naxariistay cabdicasiis maxamuud guuleed afrika dagaalka ururka al-shabaab ee kula jirta dawladda. waxa uu ahaa soo saarihii barnaamijyo badan oo lagu soo bandhigayay xogaha dahsoon ee ururka al-shabaab. waxa uu ku caanbaxay barnaamijyo aan u wanaagsanayn maqalka al-shabaab oo uu ka mid ahaa barnaamijkii barnaamijkeena gungaar oo aan ku dul istaagi doono macaalinkii dilaaga ahaa iyo shabakadiisu ay burburiyeen booliska gobolka banaadir kuwaasoo qaarkoodna la qabtay oo ay cadaalad mareen qaarna la hayo xogtooda oo lagu raad joogo. gungaar oo ahaa barnaamij yeeshay saameyn badan soona jiitay dad badan oo jooga dalka iyo dibadda ayuu allaha u naxariistay cabdicasiis afrika ka hadlayaa bilowgii barnaamijkan iyo filashadiisii marka hore iyo halka uu gaaray iyo ujeedooyinkii loo bilaabay gungaar. runtii aniga markaan diyaarinay xitaa ma aanan filayn in saameyn intaas leeg uu yeelanayo. ujeedkaygu waxa inaan dadka u soo bandhigo xogta argagixisada, inaan dadka geliyo feejignaan iyo inay wacyi ka qaataan dhagarta ay samaynayaan argagixisadu si ay bari ka maalin uga feejignaadaan in hab noocaas oo kalea lagu dhagro. laakiin waxaa ii soo baxday heerka aan ka filayo feejignaanta heer ka badan baynu dadkii geliyey, dadkii ay hadda ayagii oo dhan feejigan yihiin. waxa uu ka badbaaday dhowr isku day oo la rabay in ifka looga qariyo cabdicasiis afrika si meesha uga baxdo hawsha qaran ee uu hayo bulshada. waxa uu kaga hadlayaa codkan oo la duubay mar uu dhaawac ka soo gaaray isku day la rabay in lagu dilo oo ka dhacay meel aan ka fogeyn meesha uu ku geeriyoon doono ee taalada daljirka dahsoon. markii aan taalada daljirka dahsoon marayno ayaa mar qura waxaan ka war helnay xabada nagu bilowday oo taaladana looga soo bilaabay. allaha u naxariistay cabdicasiis afrika ayaa ugu dambeyn ku geeriyooday qarax uu fuliyey ruux naftii haliga ah oo uu la beegsaday, waxaana geerida cabdicasiis noqotay mid dad badan aad uga naxeen. waxaana ka tacsiyey geerida cabdicasiis madax badan, waxaana mas-uuliyadda dilka cabdicasiis dusha u ritay ururka al-shabaab oo sheegay in ay muddo ku raad joogeen. cabdinaasir socdaal, Bilan Radio.